waxaa maanta halkan oo ah xerada ciidamada daraawiishta Puntland ee 54 lagu qabanaya shantii kursi ee ugu horeysay 37 kursi ee baarlamaanka Soomaaliya Puntland laga doorto magaalada Garowe ee caasimadda Puntland kuraasta taalla waa 22 kursi halka magaalada Boosaasona la wado in lagu qabto 16 kursi 22 kursi ee magaalada Garowe lagu dooranayo shantii ugu horeysay ayaa maanta hoolankan lagu dooranaya oo ah halkii Puntland lagu asaasay 24 sano ka hor waxaa ilaa imika la doortay kursigii koowaad oo ahaa 196 kaas oo loo doortay Cabdi Ibraahim Warsame wasiir ku-xigeenkii wasaaradda maaliyadda Puntland oo la tartamay Abshir oo helay 6 cod halka musharaxa guuleystay Cabdi Ibraahim oo helay 9 cod tiradii dadka soo xaadiray hoolka waxaa imika loo dareeray oo ergadiisii ay xiroonaysaa kursiga 249 kaas oo ay ku tartamayaan laba musharax oo kala ah Cabdirasaaq Maxamed Ciise iyo Cabdullaahi Xasan Rooble oo ah wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada Puntland oo kursigaasna doorashadiisa ay halka ka dhacayso kuraasta kale ee maanta loo mad leeyahay in doorashadooda ay halka ka qabsanto waxa kamid ah kursiga 200 oo ay ku tartamayaan Cabdi Wahaab Ibraahim iyo Cali Yuusuf Cali oo horeyna u ahaa xildhibaan imikana kamid ah ragga ku tartamaya kursigaasi kursiga kale ee halkan ay doorashadiisu ka dhacayso waxa kamid ah kursiga 235 kaasi oo ay ku tartamayaan Cabdikariin Jaamac Xasan iyo Cabdullaahi Bidhaan Warsame waa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga Soomaaliya oo kursigaasi hore ugu fadhiyay maantana tartan u galaya kursiga kale ee shanaad ee lagu tartamayo isagana maanta waxa kamid ah kursiga 166 oo ay u tartamayaan musharaxiinta kale ah Ahmed Cabdi Xaashi iyo Ahmed Cabdisalaan Ibraahim kursigaasi waxa horay halkan u yimi inuu u tartamo laakiin inta uu Muqdisho ka laabtay sheegay inaysan daafurayn wasiirka duulista hawada Soomaaliya Duraan doorashada maanta halka dhacaysa waxa ku xigi doonta 5 kale oo mudaysan in talaadada ay dhacdo doorashadooda